guud ahaan Somaliland waxaa aafeeyay sixir bararka kaasi oo ay ummaddu ka soo taagan tahay isla markaana maraya halkii u sareysay iyadoo dhawaalaha soo socda sida ay saadaalinayaan aan waxba la kala iibsan doonin haddii aan waxba laga qabanin. qaar ka mid ah aqoonyahanka Somaliland ee daayarta ayaa madaxweynaha qaranka Somaliland ka codsaday sidii uu wax uga qaban lahaa sixir bararka baasan. isla markaana waxa ay farta ku fiiqeen shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ay ku tilmaameen kuwa kow ka ah sixir bararka iyagoo ka hadlaya amuuraha waxa ka mid ah hadaladoodii. sixir barar aafiyay dowladda kulmiye Muuse Biixi Cabdi xukuumaddu soo dhisay waxay ballan qaaday inay haddii la yiri sixir bararka ku guuleysan doonto. taa waxa ka sii daran tilisom way noqotay sixir barar gooniya oo qayb ka mid ah noloshii qaadatay oo maanta bulshada iyana dhibaato gooniya oo aan dadku ka soo waaqsan dadkii dhibaato ku haysa iyana la timi. waxaan u sheegaynaa xisaabaha in la eego hoos loo eego iyaan u sheegaynaa xukuumadda. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. runtii jamhuuriyadda Somaliland way ku mahadsan tahay wax wal oo wanaagsan oo ay qabato. waxaad moodaa baryahan dambe in waxa weeyaan xukuumadda kulmiye ay waxa weeyaan ballan qaaday in sixir barar badan oo dalka ka jiro. إن شاء الله تعالى لكن وحن رجينا مدحونا عصبات دلك إمك قبصدين مدن موسى بيحي عبدي إن وحويا إسبدل عصوب وناكسن أو عدالة ده إن وحويا يعني نور إن شاء الله تعالى إن وحويا الموسيقى ومن الله سبحانه الله يسلم وحويا سعر بركة وحكينا وحكى لماها وحويا دتكيني أيدا عدني معك بحسن دلك حدي له هلود دا عدنمو iyo waxa weeyaan diinta oo si fiican loogu dhaqmo waxa laga yaabaa inay naas sixir bararka arag way waxa kooskarey sixir bararka sidiisaba dhibaatooyin badan oo aafaa oo aynu nagu waxa weeyaan bulshada reer Somaliland ay la timaado sida waxa weeyaan musuqa sida waxa weeyaan sinada iyo waxyaalaha faxshiga ee foosha xun leh waxyaalahaas ayaa kulli kooskarey bay noodan kalna waxa weeyaan sixir bararka. waxaan insha Allah ta'ala inuu aad aynu waxa weeyaan aynu bogaadinayna xukuumadda cusub ee iminka dalka ku waxa weeyaan qabsatay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi. wana kulli nin waxa weeyaan ka gedisan oo waxa weey xagga diinta aad ugu fiican. marka insha Allah ta'ala halka waxaan kusoo gabagabaynayaa ilaahay khayr ha dhigo. kulli tilisom waxa weeyaan waxna way noo qabatay oo waxa weeyaan iskaarsiin marka la yiraahdo horta waynu ku raynay dhan oo waxyaalo badan baa waxa weeyaan laga faa'iiday balse laakiin waxa weeyaan waxaad moodaa in sixir bararku saameynta uu nagu yeeshay iyadoo ay kow ka tahay. waxaan leenahay iyada tilisom hadba sidii ay waxa weeyaan wax ay dejin karaan sixir bararka ay wax noogala waxa weeyaan iyaguna ay population ka Somaliland ay wax kala dagaalami karaan inay waxa weeyaan ay isku taxaluujiyaan. وصدق برنامج كمان في هذا إني بحاول شيء سحب برا كل عين لعبتني تعصب أنا جوا الكوا إنه وحى هالكاب قاعدين وياي حوله هذا الكلام بدي مايو أقول كينو وياي هذا لو وياي يصدق حذر كي دوني الصوت اللي أنا قاعد هذا الكلام سر ويديس أكيد تجلس بيتيس ما أنت مرة وحلا إيمان كمان تحكم بتعصب وأنا مدة لعبتي إنه قيمة هود ماشي كسارة أما بدأ حوده مساعد دولي ولا هذا هود ماشي كسارة أو لعبتي إنه قيمة أما مالك هم أنت عن لقنا اللي حنت هذا سينه قيمة أو ماشي بعيد أو ماني نحن قريب يا وايو هود واحد طابته ما هلا كده يقول واحد طابته يا waxaan ku adkaynayaa madaxweyne sixir bararka si kale wax looga qabanaya ma jirto
وإن العكتا قراد هودا بيش نقصها. وموسى حسين حسن ورارك SBS قبل كجميلي.